بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان ومانت تي في waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono madaxweynaha maamulka Banaadir State oo marti noogu ah waraysigan gaarka ah Abdullah Dheere waxa uu ku sugan yahay xarunta dhexe ee TV-ga maanta magaalada Muqdisho. Dhowr su'aalood ayaan weydiin doonaa oo ku tacalluqa dhinaca amniga, nadaafadda iyo sidoo kale dhalilaha loo jeedinayo maamulka gobolka Banaadir. Sidoo kale dhowrkii maalin ugu dambeeyay waxa la hadalhayay isqabqabsi dhinaca dhulka ah oo markaasi maamulka gobolka Banaadir uu amray in laga guuro dhul hadda ay degan yihiin mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda gaar ahaan kuwa xildhibaan iyo aqal sare ah. su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiin doonaa madaxweyne ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataa maanta TV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام شقالة iyo maamulka radio maanta iyo TV-gaba aad iyo aad u mahadsantihiin sida aad wacyiga jiray afkaarta bulshada aad ugu gudbiseen waa idinku mahadcelinayaa waanadaas waa mid aad isoo jiidatay oo ugu kaliftay inaan soo booqdo midda kale hadda waad arkayseen magaalada waxa ka jira oo wadan kale ma joogtiin magaalada waxa ka jira fashil amniga ka jira ma lahayno cid loo qabtay loo ciqaabay lagu la xisaabtamay ma hayno sitimaankan gudihiisa waxa dhacday in ka badan 13 qarax oo dad markii uu yartaaba 10 ka badan ay ku dhimanayeen hadda waa arintaas arin sahlan ma ah waa arin aan caadi ahayn arintaas cid ka damqatay u dhibayso loo xisaabtamay ma arag wadadii hal meel oo ka dhacohaya eeridaas meesha bulshada ay u badan tahay oo magaalada ay ka dhismayso mar walba la burburiyo waa ganacsi hadii ahaleed wax walba ahaleed waa la burburiyo dad aan waxba galabsana lagu baabiyo dowladdiina madaxeedina u dhinto dadkaas maalintii la iska magama meelaha kale bulshada joogta caadi lama tarkis laakiin waxaan rabaa arintaasi mas'uuliyiinta amniga oo madaxweynaha ugu horeeyay iyo ra'iisul wasaaraha inay cid ay u idmadeen ay kula xisaabtamaan ku abaal marshaan ku ciqaabaan sidaasaan leeyahay watay maamulka gobolka Banaadir dhaliil baa loo jeedinayay inuu waxba aan uusan ka qabanin dhinaca amniga iyo sidoo kale nadaafadda sababtoo ah marka qaar waxaad arkaysaa mas'uul qaabilsanaa dhinaca amniga maamulka gobolka ku qaabilsanaa oo ka hadlaya arrimaha la xiriira arrimaha bulshada oo gudoomiye ku xigeen gooni ah ay leedahay marka isbarbariyaac dhinaca maamulka oo jira ma la isdhihi karaa kooxaha wax qarxiya way ka faa'iideysteen oo sidaa u sibriyeen horta gobolka Banaadir waa aragtay awoodo wada simanaa ka shaqeeyay awood laga dambeeyo kama shaqeyso awoodo wada siman hadda ka hor waad arkaysiin gudoomiye degmada xil laga qaaday ku xigeenada diida ku soo celishay waa isbarbariyaac awoodaha meel kale haystaan aniga ma garanayo gobolka Banaadirna gobernatooraha hadda jooga markuu imaanayo shaqaalaha jooga iyo shaqaalaha hadda ku kordhay waa farabadan yihiin dad meel gaar laga keeno gobolka kale laga keenay ayaa ka shaqeeya gobolka gobolada kale laga keenay sidii waxa laga keenay Garbaharey oo kale Kismaayo oo kale dad kale laga keenay laga shaqaaleysiya iyo mataqaana Galmudug hadda gobolkan dadkiisina hal qof oo laga shaqaaleeyay ma jirto waa abaari karteen liiska shaqada gobolka Banaadir laga rabay awoodo siman oo mid la arkaba meel ay wax ka maqasho ayaa ka shaqeeya taasi waa mid ay bulshada la yaaban tahay waxa kale oo jirta oo aan meesha ku aragnay shaqadii gobolka laga rabay oo laga rabay inuu degmooyinkiisa iyo dadka ugu mas'uulka oo kula xisaabtamo laga rabay ma aadin nadaafadii mas'uulkeeda oo la xisaabtamay ma arag wadanka meel kasta oo wasaqataan nadaafada taa dadka cuduradan badan oo laga qaadayo waxyaabahaas laga qaadayo kamid yihiin cid ku xisaabtamayso ma jirto shaqadii kale ee aheeday amniga waa aragteen aad ugu mashquulsana dad loo xiray oo degmooyinka taliya saldhig laho gudoomiye degmo laho loo cinqaabay amniga ma arag ummadaas baabaaday midda kale waxa ku mashquulsan yahay dhul maanta hore loo bixiyay oo ay dad ganacsatada mas'uuliyiin ay degan yihiin si sharciga waafaqsan oo xeer madaxweyne ay ku degan yihiin oo aynan iska degin oo dad ku habsada aynan ahayn dad mas'uuliyiin oo senatara ayaa degan dhulkaasi taliyaal ciidan horu ahay oo dawlad ay siisay si nidaamka waafaqsan lagu siiyay dawladdan aniga ma aqaan wax aan gara kara ma aha
shakhsiyaadka ay kula soo heshiisay ay dhulkaas dadkaas u barakacayso aniga ma aqaan waa dowlad aan dad iyo dal u naxayn oo dowladaha ajnabiga hadba inay qanciyaan isku day arrintaasi waa arrin mas'uuliyad xumo ah waa waxna damqiyay oo shibka dhihi weynay oo aan maanta idinku soo booqanay oo bulshada dhibay muxuu ahaay hadda shaqadii waxa qofaan shaqadii aqaan annaga ma u fadhi karno shibka ma dhihi karno ummaddu way baabaaday wadooyinka wasaqaa goysay muxuu ahaay dhulkana dowladda dhul way bixisaa dhulkay bixisana si nidaam ay ku bixisaa meeshaasina waxa uu yiran ka maqlay safaarado ayaan siihaynaa adeer macaan adan ku weydiina safaarado sooma aantii meel magaalada ka baxsan inta la dejiyo dhaqdhaqaaqeeda lala socoyo la kontroolay ya oo xiriirka diblomaasi wixii u yimaado maanta lala soco karo safaarad bad la siihayo oo bilcay dhisay la leeyahay aniga waa danagaar ahaan leeyahay danagaarana cid lagu matalo ma jirto dowladii ku horeysay sida oo kale safaarad ay siisay dhinaca xeebta u jirtaa safaaradaas waa dowladii dadkan ay ugu jeclaayeen dowladaha ajnabiga oo u soo gurmatay markay macluusha ka jirtay hadda waana soo gurmatay inay naqayaantana ma ahayn waa jecelnahay dowladda Turkiga safaarad inay qaad arintaas waa arin mar walba lagu xisaabtami doono oo bulshada Soomaaliyeed ku xisaabtami doonto waa arin qalada in bad safaarad la siiyo safaaradaha kalena ay ku daydaan taas waa arin qalada waa dembi sharciga internationalka xiriirka caalamiga kuma jirto in bad la dejiyo oo dekada la dejiyo safaarado ay waxay rabaan ka soo gashadaan wadanka ay mataqaanaa control karin waa arrin qalada ma aqbali karno mana yeelino maxkamadana la kori doona caalami waxaan noo carbabtaa dhulkan aad sheegtay isqaqabsigiisu hadda uu taagan yahay waa dhulkii horo area dhulkii horo ee xero marino dhulkeedii waa horta iidaa degan oo xeradii weyn iidaa degan guriga taliyahana nin mas'uul oo dowladdaas qalabkii oo haystay iyo wixii huba uu haystay oo ku shaqay jiray farta ka saaray ayaa la siiyay sida aan ka warqabno si sharciga laba madaxweyne la siiyay waa senator Muuse Suudiye Laxow senatorradii in loo hujuumo oo walba qalqal iyo loo geliyo waa lagu weeraraa waa lagu imaana bulshada kaaraan oo dhan way qalqalsanay tabinada waa la soo weeraraa awooda isugu imaanaya leeyahay waa dhibay arintaas ma ahan dawladda inay ku mashquulsay qaraxyadan imaanaya oo meelay ka yimid aan la aqaanin oo cidna loo ciqaaban cid oona waxna laga qaban oo bulshada ay ku baabaaday waa arin qalada looma dul qaadan karo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arintaas inay la naqdaan inay dib u la naqdaan haday iyagu wax ka og yihiin hadaynan ogeyn gobernatooraha meesha ku keenay asaga kula xisaabtamaan waa cadawtinimo kale oo cadow dawladda cadow ay lahayd hore u lahayd oo kan dagaalka ka dhaxeeyo cadow kale oo bulsho inay dawladda abuurato ay bulshada baabi'iso ay bulshada qalqalqaliso waa qalad waa arrin qalad waa tahay isqaqabsigaas dhinaca dhulka markaan si aan baqaadno isqaqabsi ma aan horta waa dhul la doonayo in la boobo oo safaarada shisheeye laga gato sida afkiisa oo ku sheegay bilcaal uu soo celaahu leeyahay wadamo ajnabi ah siihayna horta taas waa dembi waa in ablajas laga baxsho bulshada la siiha dad dhulna mar la baxsho marka la baxsho hogaankii lahaay ee mariiniska ma aha hogaankii lahaay mariiniska waxa qeylaa qaba male asaga degan meesha dhulkiisa uu degan yahay dhulkana waxa siyaad bar inta ka suqaysay ayaa la lahaay kadib markii danta guud laga saar dad aan iska lahayn dhul oo asal ahaan u lahaay oo dhul ay jeebka ku wada dawladda ma aha dadkii iska lahaay na dawladda ka qaadatay wixii ka soo yarana hal loo cabiro loo sharciyay tiri qaar hadda dhulka loo dhaarsan yahay u soo dhaarahayaan dhul maxamed siyaad bar la baxshaa ku jira taasi waa danagaar mana dul qaada waa looma dul qaada karo bulshadiyo baaba ay siirada la qalqal gelihay ee haddana dadka in la sii laayo la rabo waa dembi waay dembi qaran waay waa tahay markii dhinaca kale aan u soo laabano amniga dawladdu dadaal badan bay samaysaa oo dariiqada way xirtaa meel baciidan bay dhigtay taliyaashii saldhigyada waa la bedelay weelna qaraxyada way dhacayaan dadka idalgaradka ee gobolkan ka soo jeeda ama u dhashay iyo shacabkii deganaa iyaga ku dhawso mas'uuliyad amni ma saareen adeer waxa hadda meeshaan keenay oo ka damqan oo ka qayla dhaameen horta mas'uuliyad naga saaran dalka iyo dadka gobolka amniga taliyaasha saldhigyada hadda la magacaabay taliyaha gobolka Banaadir oo magacaabay waa dad gobolkan aan u dhalan oo shaqo ku lahayn dadkii gobolka way joogaan waa dayayaan aniga adeer macaan sool iyo sanaga dan tago amni kama suubi karo shiiqiisi iyo tuugiisi kala ma aqaan
haddana ilmada dhil xaalka dadkii wax garadka ay saldhigada joogi jiray ninkii tuuga ay dhaqdhaqaaqaysa ogaayna waa laga baxshay meel la geeyay lama naqaan degmooyinka waxaa la geeyay ilmada dhil xoon la aqaanin oo baliis waa lagu leeyahay oo da'yar oo adiga kaasi wada yar marka amni ma sugi karaan adeer amni looguma talagelin jidkay xiri karaan kaliya dadkay celi karaan naag umul kale wareeg leeyahay arag adeer macal arrintaasi soo ma ahan shacabku waxa ku fali maayo qaraxina wuu socdaa meel uu ka yimid dhulka uu soo baxay qarax cidna looma ciqaabin nin qarax qabtay oo lagu abaalmarshay lama arag taasi waxa waaye mas'uuliyad xumo mas'uuliyiinta ugu sarreysay dadkaad u xil saarateen xilka warta waa in la isu asilaa waa in la isu ciqaabaa bulshadii baabaaday inta dhimata sooba ku dhimatay inta ka dambaysa dadkaasi ilaa wadadkan miyaa qandaraas lagu qabaa in la baabaasho gobolada kale waxba kama dhacaane dhaqaalihii waa laga qaadaa way dhiban yihiin socamo karaan islaantii garas baaley laga keeno isbitaalka loo soo wado wadada keeni ma karto way isku dhimanaysaa intay dhex ku jirto meelay marta male hadda soo ma ah qaraxina uu maraa hadda qaraxaas xaguu ka yimi ma erku ka soo dhacay tii gubadley laga keeno ayadana sidoo kale hadda habeen dhawood gabadha meeshaas cunugku dhex dhinta laay oo ku dhibaataysan oo gubadley waa arrimo dhibaata oo dadka u jiirnaxaya deegaankan dhibaya annagu way joognaa shibka ma dhihi karno wax ka qabanaya dawladii oo u naxaysa ma aragno waa dhib ciidankii booliiska hayo asalka hayo waxay qiimo la baabiyo waayo ciidamo kale oo gaar ah la abuurto waayo waa waxay yihiin ma naqaan kuwana dil rabay kuwana dhici raba inay yihiin ma kala naqaan markee booliiska waa kiin geedkii nabadda waa booliiska in bulshada uu kasbado la socdo oo dhibaato abuurin waayo arrimahaas badankood dawladda lagu dhilaa inta badan oo dadka mucaarasan ay ku dhilaan marka adiga maxaad isleedahay way u wacan tahay aniga dhaliilba maahan waa arrin jirta ee sax ah taliyaasha saldhigyada oo loo dhiibay iyo qaraxyada dhacay toddobaadkan gudihiisa miya wax oo isla iska dhintay kara waa maya dadkii jidadka inayna mari karin miya beena waa maya idan arrintaas waxaan ka rabnaa xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ayaan ka rabnaa ayaga dadka iyo dalka mas'uuliyadooda ugu sarreysa saaran tahay hadda baarlamaankiina waa aragtay oo baarlamaankii wax sheegi ma karaan dadkii baarlamaanka deegaankan wax ay sheegi karaan male ayaga yaaba tahdiid iyo hujuumaad lagu suubiyo haya annagu mana nihin annagu dadana gaara lama nihin ee bulshadan dhibkeedan la dhibayo shibna kama dhihi doono intii qalad bulsho oo jiro annagu mas'uuliyadaas waa nisaarantaa umana dul qaadan karno dadkeen iska baaba'ay amnigana dadka ehelku ah in loo dhiibo nin shaqadiisi shaqaan ahayn qabanayana waa nin sid bursi raba ee dawladdu ha aragto shaqadii loo idmaday ayaa aniga waajib ugu ah inaan qabto shaqo kale shughul kuma leh waa tahay ka maamul Banaadir State ahaan maxaa qabataan Banaadir State waa aragtay oo waa la diiday dawladda diiday haday diidana bulshadeedii baabi'isay horta Banaadir State goboladu la mid yahay gobolada hadda jira maamul goboleedada jira la mid yahay oo hooyadii yahay gobolada wuxuu leeyahay xushmad gaar ah tixgelin gaar ah dhaqaalaheeda wax lagu soo bartay nin walba oo mas'uul oo Soomaaliya dhaqaalaheeda wax ku soo bartay Banaadir State waa la diiday dadkeedina saasa loo baaba'ay u dhibaataysan cid u hadlaysana ma arag midlaadna ma haystaan waa dhib halkii senator oo ka soo jeeday nawaa xildhibaanadina waa aragtaba ayagaaba gacan ku bada kii ayaga taageersan wax oo bulshada u keenaa ma jirto xildhibaanadii deegaankan u dhashay wax bulshada oo uga keenaya dawladda oo isfahansiyahay oo bulshada dhibaatada oo dawladda u sheegay oo isbedel kuma aragno marka dawladda miyaa dadkan dan ka lahayn iyo deegaankan dan ka lahayn oo raban oo deegaano kale oo gaar rabta arrintaas dawladdan ka rabnaa waana jawaab degdeg ah uga rabnaa iyo isbedel degdeg ah dhabahay dadka iyo dalka badbaadi kara sidaas xaqiiqda daawadayaal meel baad joogtaan waxaan leenahay kulanti haboon guud ahaan waraysiga gaarka ahaa aan la yeelanaynay Cabdullaahi Dheere oo ah madaxweynaha maamulka Banaadir State ayaan jeclahay in halka ku hakiyo madaxweyne aad badan ma santa waa idin mahad celinaya idaacadiina ha ka daalilina ha ka caajisanina handadaad idaacadaha waa loo hanjabaad dawlanaha qaadanina insha Allah aad u mahadsanyahay waxa waxa Cabdullaahi Dheere madaxweynaha Banaadir State kaamirada iyo farsamada waa Cabdiraxmaan Xasan Taaliil nabadiyo